الرحمن الرحيم waad aragtaan waxa weeye maayirka qura maahay waa deegaankii togdheer burco ayaa inoo yimi waxay u yimaadeen golaha waxa sidaad ogtiin waxa yaal xeer 23 oo ka hadlaya gobolada waxay ka cabanayaan waxa weeye waa cashuuro iyo wax la mida wixii ay ka cabanayeen waa noo soo gudbiyeen xeerkiina gacanta lagu hayaa marka taasaanu ka wada hadlanay waxaanu ka wada hadlanay burco abaaraha xaaladda ka jirta burco iyo dalka oo dhanba marka xeerkana waa xeer gobolada oo dhana marka wixii gobol kasta baahidiisa si gooni ah loo eegayaa wax wada sibanna waa loo sameeyaa hadii Ilaahay yiraahdo gudoomiye marka cabashadani muddo badan bay soo taagneed magaalooyinka cabanaya xeerkaas ma bedelaysa xeerku waa xeer cusub weeye hore u yaal amandad baa lagu sameeyay goluhu hor imanaya waana laga qayb galiyay gobolada oo dhan maayirada oo dhan waa wada joogeen waa laga qayb galiyay waxaan doonaynaa xeer u dhaxa gobolada oo dhan oo cid walba xaq ay leeyihiin siinaya ayaanu ka wada hadlanay waana loo wada sameeyo goboladooda xaq bay u wada leeyihiin in wax siman loo sameeyo marka waxaan hadii Ilaahay yiraahdo xeer goboladooda anfacadaan soo saarnay hadii Ilaahay saxaafadda marka hore waa salaamayna dhamaantiin waxaan u nimi halkan kulli dan waxa loo ogyahay xeerka la yiraahdo xeer 23 ama xeer 2 in muddo cabashadiisu joogtay meelaha qaarkood oo gobolada qaarkood ama degmooyinka qaarkood ka cabanayay sidaa uga madaxweynaha qaranka ugu mahadnaqaynayo ciidii kale soo abaabushay haday tahay wasaaradda dakhiliga iyo hadii ay tahay maartay guddigii loo xil saaray dib u eegista xeerka cabashadu ka timi gudoomiyaha guddida Balaaki xildhibaan Balaaki iyo ragii kale xeerkaas soo diyaariyay ayagana waa mahadnaqeen ujeedadeedu waxay ahayd inaan ku urgalno cabatankii xeerka aan ka keenay oo maanta golaha wakiilada hor yaala iyo wixii laga bedelay oo aan dhowr jeer iska aragnay maayirada dalka wasaaradda dakhiliga iyo dhammaan wasaaradaha shaqadu naga dhaxayso gudoomiyaha waa la kulanay gudoomiyaha guddiga nabadgelyada oo iminkana gacanta ku hay arrimaha gudaha iyo nabadgelyada oo iminkana gacanta ku haysa xeerka Balaaki xildhibaankuna waa nala fadhiyay xildhibaanada waa nala joogeen waxaanu ka cabanaynay horaan yaanu soo gudbinay qoraal waa ku gudbinay ayaguna gacanta lagu hayaa xeerkii amadna waa lagu sameeynaya waxay noo ballan qaadeen inaanu anagu gobolada kale wax ma dheerin degmooyinka kale wax ma dheerin hawl kale oo soo kordhayna way jirtaa oo aan madaxweynaha qaranka ugu mahadnaqayno oo ah lacagayo ka maqnaa dawladaha hoose ee Soomaaliland dhamaantood oo dib loogu soo celiyay muxuu ahaay gacanta dawladda hoose dib loogu soo celiyay taana qaybinteedii ay u taalo guddidan xildhibaan Balaaki madaxda u yahay waxyaabahaas oo dhan baan ka wada hadalay abaaraha guud iyo dalka iyo degmadaanu ka nimi iyo gobolkaanu ka nimi abaaraha iyo sida ay maartay u saameeyeen baan ka wada hadalay waxaas oo dhan waxaan ka gaadhnay wixii warbixinaan sideen oo u dhiibnay ayaguna wixii hayeen waa noo dhiib heshiiskaygu waxa weeye kaliya xildhibaanada next week in la soo dhigaa laga yaabo xeerka golaha wakiilada degmooyinka oo dhan waxay ka filanayaan wax ku filan oo u qalma oo xaqooda inay ka helaan xeerka la xeer 2 iyo xeer 23 aad iyo aad waa mahadsantahay bulshadu si u fahanto maayir waxyaabaad ka cabanaysaan ee cabashada sabaxay gobolada ma laga waxa cabashanaga noo gaar maaha oo degmada Burco u gaar maaha laba dhinac bay noqonaysaa mid weeyaan waxa jirtay lacagayo cashuuraha ee dawladaha hoose dawladda dhexe u qabato oo 50% kamida waqtigii madaxweynaha Riyaale loo gooyay doorashadii oo sidii dawladaha hoose uga maqnayd haddana uu madaxweynaha qaranku Muuse Biixi Cabdi dib noogu soo celiyay ugu mahadnaqayna mid waa taa midna waxa weeye qaybsiga
cashuuraha dawladda dhexe ay dawladaha hoose u qabato sidii degmooyinka loogu qaybin lahaa sida ku qoran xeerka 23ga qodobka 89aad oo ah in lagu qaybsado muxuu ahaa cashuurahaas dawladda dhexe soo celiso saddex wax